Inglaterra. deegaanada maamulka degmada ururka haweenka dhalinyarada ee degmada Cabdicasiis iyo bahda isboortiga dhammaan iyo bahda warbaahintaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad ugu faraxsanahay in aan kala soo qayb galo xafladan muhiimka ah oo aan xariga uga jarayno dayactir lagu sameeyay xarunta garoonka degmada Cabdicasiis oo muhiim u ah dhalinyarada bahda isboortiga iyo dhammaan bulshada Cabdicasiis annaga maamulka gobolka hadaan nahay waxaan ballan qaadnay inaan noqono maamulkii shacabka u dhawaano shacabkana waxyaalaha warrab waxaa ka mid ah in goobihii danta guud ee garoomadii lagu ciyaari jiray ay bulshadu hesho dhalinyaradu fursad u hesho isla markaana isdhexgalka bulshada keena garoonkan Cabdicasiisna mid taariikh leh waaye magaaladan ama degmadan waa degmad xadaarad leh oo maaragtay ka mid ah degmooyinka ugu caansan gobolka Banaadir taariikh fogna leh isla markaana leh xeebta liido oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed yaqaanaan berisamaadkiina ahaan jirtay goobta loo soo dalxiis tago oo dadka ajaanibta adduunka ka kala yimaada ay u soo dalxiis tagi jireen maantana aan wadno dadaalkii lagu soo celin lahaa muhiimadaas ay leedahay degmada Cabdicasiis iyo xeebta liido gudoomiyahana sida uu sheegay shalay waataan dhagax dhignay wadada liido oo muhiim u ah bulshada caasimadda iyo dalkoo dhan annaga maamulka haddaana gobolka Banaadir waxaan ahmiyad gaar ah siinaa dhalinyarada iyo sidii u horumari lahaayeen maanta oo ah munaasabadii dhalinyarada adduunka 12 Agoostana inay ku soo aado xariga ka jaridda garoonkan ciyaaraha ee degmada Cabdicasiisna waa mid tusaysa sida aan ahmiyadda u siinayno dhalinyarada waana naga go'an tahay mudane gudoomiye adiga iyo maamulkaaga iyo bulshada Cabdicasiisba waxaan idinkaga mahadcelinaynaa doorkiina dawladnimo iyo dhisidda iyo nidaamka dawladnimo ha noqoto nabadeynta ha noqoto barnaamijka darisaynta ha noqoto isdhexgalka bulshada waxaana rabnaa hormuudka aad ka aan jirteen inaad ka sii ahaataan intaas ka sokow waxaan rajaynaynaa in dhalinyarada iyo ciyaaraha soo bandhigi doonaanna aan si fiican u daawan doono idinkana waxaan idin rajaynaynaa dheer waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda TIS Plus oo runtii kaalin muhiima ka geysatay sidii bulshadan u heli lahayd xaruntan oo dayactiran maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmadana uu diyaar idin leeyahay in dhalinyarada aad maaragtay waqtigiina ku qaadataan mar kale aad iyo aad kaga mahadcelinaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu